goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya loo sii xoojin lahaa isla markaasna la isaga sii kaashan lahaa dhinacyada nabadgelyada doorashada iyo guud ahaanba habsami socodka howlaha kale ee ka dhexeeya labada dowladood waxaanu si ballaaran uga wada hadalnay habsami socodka howlaha doorashooyinka oo runtii aan bogaadinayno go-aanada geesinimadu ku dheehan tahay ilaa hadda uu madaxweynuhu ka fuliyey dhinacyada doorashada oo tusaale u noqon karta dowlad goboleedyada kale ee dalkan ka jira intaas waxaa dheer inaanu sidoo kale aanu ka wada hadalnay howlaha guud ahaan howlaha nabadgelyada iyo iskaashiga dhanka nabadgelyada waxaan dhammaantiin ka dheregsannahay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo runtii kaalin weyn kaga jira la dagaalanka argagixisada iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed in dowladda Itoobiya iyo ciidamada Itoobiya ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ahayn AMISOMba ay runtii si wada jir ah ay howlgal u sameeyaan isla markaas loo baahan yahay in arrintaas la sii xoojiyo sidaas oo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka iyo sida ay hadda habsamida leh oo ay ku socdaan iyo amniga doorashada amnigeeda sidii loo sugi lahaa ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican Southwest aan leenahay dowladda Itoobiya oo kale ma jirto arrimahaasaan ka wada hadalnay in la sii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba la sii xoojiyo runtii inta waxaa jooga ciidamo AMISOM ah oo dowladda Itoobiya ah iyo ciidamo non AMISOM ah oo ku joogo heshiis dowladda ay la gashay dowladda Itoobiya oo walaalahanaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer koonfur galbeed magaalooyin badanna joogaan runtii waa ugu mahadcelinaynaa waana u ognahay abaalkaas iyo dadaalka ay geliyeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed safiirka wada hadalka anaga iyo booqashadiisaba aadan ugu faraxsan